Ah, yeah. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Sida idiin muuqato waa golihii ummadda Soomaaliyeed, golihii shacabka. Maanta wuxuu afduuban yahay guddoonka golaha shacabka. Gudoonkii hore waa wax aad looga xumaado, aqoon-yahankii, sharci ilaaliyihii, sharci dejiyihii iyo golaha shacabka in waxyaabaha qaar lagu dhaqmo. Sidaa arkaysaan waxaa halkaa ka wada maqan kuraastii golaha shacabka loogu talagalay inay guddoonka iyo kusimihiisa ay ku fadhiistaan. Dalka wuxuu u baahan yahay nabad, nolol iyo farxad iyo si waafaqsan shuruucda dalka in maxay ahaato si sharci ah lagu kala baxo ayadoo la isticmaalayo sharcigii noo dejisanaa lagu kala baxo sida xeer hoosaadka iyo shuruucda dastuurka ee noo qoran ee ku heshiinay ay qabto. Laakiin wax aad looga xumaadaa in maxay ahaato golihii shacabka loo xanibo. Waxaan rajaynayaa si wanaagsan si sharci ah inaan ku kala baxno. Gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha ummadda Soomaaliyeed, gudoomiyihii hore golaha shacabka waa qofkii lahaa waxaa diyaar u ahay shalay codaa ku imid cod inaan ku baxo. Waa wax aad looga xumaado maantana in golihii uu banda u yahay si afgembi ay ku soo galaan si maxay ahaato weerar iyo si jabhadnimo. Waa wax aad looga xumaado in loo noqdo 91kii. Waxaan rajaynayaa in sidan si ka bedelan ay noqon doonto saacadaha soo socdo. Naga raali noqdo shacabkeenna. Ma mudneen in maxay ahaato sidan ay u dhaqmaan golihii shacabka, laakiin way dhacday. Waxaan rajaynaynaa in saacado yar kadib ay soo gabagaboobi doonto insha Allah.